madaxda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay ka kala soo saareen xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu tacsiideeyay Allah u naxariistay xildhibaan Isaaq Maxamed Cali oo gaarigiisa lagu qarxiyay saaka isagoo ka soo socda gurigiisa. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsiil loogu diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed, baarlamaanka Soomaaliyeed, qoyskii iyo qaraabadii Soomaaliyeed uu ka geeriyooday marxuumka geeriyooday Isaaq Maxamed Cali. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Ilaahay looga baryayo marxuumka dhintay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan ka siiyo. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu tacsiil u diray dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu u rajeeyay marxuumka dhintay in Ilaahay qabriga u nuuro jannadana gaayeeyo. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa Ilaahay uga bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo xildhibaan Maxamuud Cali Dhuux oo qaraxaas ku dhaawacmay, waxaana Ilaahay uga bariyay madaxweynaha Soomaaliya inuu caafimaad degdeg ah siiyo xildhibaankaasi. geesta kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegay in aad looga xun yahay geerida ku timi xildhibaan Isaaq Maxamed Cali oo ku geeriyooday qarax miino oo lagu eegtay magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu uga tacsiideeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, baarlamaanka Soomaaliyeed, xildhibaanada Soomaaliyeed iyo qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyooday xildhibaankaasi. waxaana uu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu xildhibaankan uu gudanayay waajibaadkiisa qaran ee dadka Soomaaliyeed uu hayay, wuxuuna uga bariyay in uu gaarsiiyo Ilaahay meel wanaagsan.